Assalaamu calaykum. Sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay qoyskan ayaa wuxuu ahaa aabahood nin beeraalo ah. Beertiisana wax ka bixi jirtay inta fara badan, khudrad aad u fara badan. Waxa uuna ahaa mid ka faa'iida, waayo khudaartiisa faraha badan leh waxa uu geyn jiray suuqa. Dadkuna aad ayay u jeclaayeen, isaguna waxa uu siin jiray lacag aad u fiican ayuu mar walba ka daba faa'iidi jiray. Isagu waxa uu lahaa 2 gabdhood. Gabadhiisana waxay ahayd gabadh taqaanta xirfado badan, laakiin waxay iska joojisay markay aragtay inay ku nooshahay nolol fiican. Gabdhaheedu in yar ayay kala weynaayeen, iskuul aad u fiicanna way dhigan jireen. Mar walbay soo rawaxaan waxay u iman jireen hooyadooda fadhida. Markaasay ku odhanayeen, hooyo waan soo rawaxnay, gaajina wayna haysaa. Aawe cuntaan rabnaa. Iyadana waxay ku odhan jirtay wax walba waa diyaar, laakiin aabihiin baa la sugay markuu aabihiin imaado ayaan wada cunaynaa. Wixii intaa ka dambaysana way wada sheekaysan jireen. Qof walba wuxuu ka sheekeynayay waxa uu soo arkay iyo habluhu waxyaabaha ay ku arkeen madrasadda. Ilaa intuu soo galay maqlaan inuu soo galay ay tiraahdo waa kan haddaba namasha aan cuntadii dhigay. Soo kaca waa kane. Isaguna wuxuu ahaa mid hore u soo hoyda waayo uu garanayay inay sugeen carruurtiisa yaryar. Aabahoodna waxa uu qof furfuran, mar walba wuxuu weydiin jiray gabdhaha siday wax u dhigtaan iyo waxbarashadooda halkay marayso. Iyaguna waxay ahaayeen mid ugala sheekeeya intaa cuntada la cunayo keliya ayna is arki jireen. Gabdhuhuna waxay ahaayeen kuwo ku dadaala waxbarashada oo mar walba diyaarinaya oo waxyaabo kaloo ka jeedinaya ayna jirin. Aabahood maalin maalmaha ka mid ah isagoo ka shaqaynaya beertiisii, beertuna ay gaadhay xilligay go'aysay oo aad u faraxsan ayaa khudaartii mid ka mid a isagoo sita ayuu wuxuu arkay wax taataabsanaya lugtiisa. Markuu soo jeestay is idhi, haddana waxa uu arkay mas ka kaniinay lugtii kale. Naxdintii daraaddeed markii dambe dhulka ayuu ku dhacay, waxa uuna arkay maskiiyoo sii socda. Aad iyo aad buuna u naxay, meeshiina wuu ka kici kari waayey. Suntii markii dambe hungaa fara badan ayuu sameeyey ilaa markii dambe oo odaygii u sooxay, meeshiina wuu ku dhex dhacay beertiisii. Gabdhihii waxay soo rawaxeen, islaantiina sidiiyoo kale way wada sheekaysanayeen. Mid ka mid ayay weydiisay, hooyo maxaad maanta albaabkan ka eegaysaa? Aaba muuna imanin. Markaasay ku tiri, anigu waa wax niga yaabiyey. Maanta aabbihiin wuu soo dheeraaday, xilli dambe ayaana la marayaa. Muxuu talo u iman waayey? Markii dambe waxay aragtay moobilkeygii dhacaya oo lagu leeyay, dhakhtarka imo, ninkaagii mas ayaa kaniinay. Iyo gabdhihiina iyagoo cararaya ayay dhakhtarkii tageen. Markii dambe ninkii waxyaabo fara badan ayay dhakhaatiirtii u sameeyeen intay soo gaarayeen. Laakiin wixii intaa ka dambeysay, odaygii sidii ayuu ku dhintay, waana loo sheegay inay suntu si xun u gashay. Islaantii labadeedii gabdhood si xun ayay u murugoodeen ilaa intay aasiyeenna mid walba waayay ooyisay. Islaantii iyaduna iyada ayaa ugu sii darnayd, mar walbana carruurtaydu way aamusiinay xukulaayeen, hooyo aamus, anaguga soo nagan joognaa. Bariye kadib islaantii hawshii oo dhan yada ayay ku soo furatay. Waxayna raadin jirtay meel ay ka keento carruurtan siday u dabarto. Ilaa markii dambe makiinada ay tukaantay ay bilowday inay wax ku tasho ee wax ku samayso. Dukaamo fara badan oo dharka iibiya ayaynay la xiratay dukaamadiina, iyada aad ayay u jeclaayeen, waxayna u dhiiban jireen dhar aad u fara badan, waana la tusi jiray waxa lagu oran jiray sidaa u tol. Iyaduna waxay ahayd gabadh sida loo diro si ka fiican wax u talaysa oo maalin walba kusoo duujeeda, oo xitaa iyadoo daalan ayay samayn jirtay. Gabdhaheeduna waxay arki jireen iyadoo daalan, markaasay ku oran jiray, hooyo marka soo noqono annaga ayaa cuntada samaynin, iska yara naso, labana sanisid baryahan oo dhane. Iyaduna waxay ku oran jirtay wax walba aniga ayaa isku qabanay inta aabihiin maqan yahay oo dhan, idinku laakiin waxaa samaysaan si fiican waxbarashada ugu dadaala. Mid ka mid ah ku tiri, ka waran hooyo anigu haddaan gelinka dambe dhigto oo aan ku caawiyo. Markaasay ku tiri, labadiina wada socda ayaan rabaa in aad wada socotiin. Ma arki karo mid soo gelaysa iyo mid baxaysa, wada taga soo wada noqdana. Alaabtana xilligeyga ayay keeni jirtay, gabadhuna lacag fara badan ayay siin jirtay oo dhaamtaba noloshii hore ee odayga. Ani iyadoo wax talaysa ayaa gabadheedii caloosha xanuuntay. Markaasay ku tiri, hooyo maxaa kugu dhacay? Maanta oo dhan baday ag fadhida xitaa iskuul ma tagine. Gabadhii ayaa ku tiri, hooyo maanta oo dhan ayaan islaawad bogsanaysa, laakiin caloosha maqas ayaa lagaga jirjaraya, kaalay dhakhtarigii. Islaantii waxay ku tiri, waayahayna mari, hanku kaxeeyey, aniga ayaan iskaga tegayay dharkan iyo alaabtana wade. Markii dambe dhakhtar ayaa la geeyey, waxaana lagu soo muday gabadhii irbad. Wixii markii loo dhameeyey, dhakhtaradii waxay ku tiri hooyadeed wax faalsi badan ma qabto ee ka ilaaliya cuntada ay neceb tahay, calooshiina xanuujinaysa. Sidii bayna islaantii gabadheedii yareed
iyadoo faraxsan ay ku soo kaxaysay. Baabtiina ma ay tolin, gabadhii iyo guriga ku sugaysa ayay u timiday. Gabadhii waxay iska dhaaftay sidii hooyadeed iyo gabadha kale u sheekaystaan. Islaantii ayaa waxay ku tiri markii dambe, dharkaygii isii, aan kaa socdo. Ay maanta khasaaraheed igu riday, inay igu ridoo kale ma jirto. Ay ku tiri iga raali noqo, gabadha ayaa iga xanuunsanaysay, iminkana waa aan damayn karaa ee in yariso. Gabadhii waxay ku tiri waxaan ogolay ma jirto, ii dhaqso dharkayga isii, waa aan kaa soconaya, waayo ma rabo inaa adiga kaa tasho. Markaasay ku tiri waayihii, dharka cid kale ma garanayso sida loo talay. Han dhameeyo, maalin dambana hay ku soo noqon. Waxayna bilowday in ay dhammayso ee hore uga gaargaarsiiso. Markay dhammaysay, gabadhii ayaa lacagtii siisa waxay ku tiri dib dhammayso, ha igu iman shaqana iguma lihid aniga. Waa ay bariday gabadhii, laakiin waa ay diiday. Gabdhii baa ku hooyay maxaad ka baraysaa? Shaqo kale waad heli doontaa iska aamu. Iyaduna maaha qofkii ugu dambeeyay ee lis wada ku hayay. Laakiin islaantii siday ka baqanaysay ayaa dhacay, waxayna noqotay shaqaba waa ay weyday, qof walba garaacdaana wuxuu ku lahaa meel nooma banaana. Gabdhaheeguna mar walba waxay arki jireen siday u murugoonayso ay mar walbana uga cabsoonayso mustaqbalka. Gabadh ka mid ayaa ku tiri hooyo bal ka warad, haddii aad adiguba meel furatid, maxaa adigaba faraha ka haysta? Aniga ayaana ku xayeysiinaya. Markaasay ku tiri hooyo, anigu kelida waxaas oo dhan ma qaban karaya, sidee maxaa aan sameeya? Gabadhii waxay ku tiri lacagtada haysidkeen ay ku hadhay, ku soo iibi, marayaha, hadhowtoodana xayeysiiya oo lacag sii. Sidaa bayna islaantii ku waday, gabdhaheygii baana caawin jiray, ilaa intay islaantii heer gaadhay noqotay, qof laga wada garanayo meesha. Gabadhii ayaa maqashay in dukaankeygii dukaanka qurux badan ay islaantii furanayso, ay gurigiina ka dhex furatay dukaan aad u qurux badan. Gabadhiina waxay ka fikirtay waxyaalo mishiina oo wax lagu tali jiray iyadu lahaan jirtay inay gabadhan heerkan ka gaadhay. Maalin iyagoo wada mashquulsan ayay u soo gashay iyadoo qaayina soo kulad, aaway gabadhii waxay ga xadhay. Marka hore iyagoo soo dhaweynayay soo geliyeen, laakiin markii dambe ku tiri alaabtan oo dhan aniga aleg waanan jijibinaya. Ay islaantii iiday ku tiri hayga jijibin, waa aniga ku shaqaysanaya. Laakiin alaabta mid ka mid ayada ayaa lahayd, waxayna bilowday markii dambe inay alaabtii oo dhan xaafadii ka jijibiso. Gabdhihiina waa ay xanaaqeen, hooyadoodna waxay ahayd mid aamusan oon gabadhanba la hadlay. Markay islaantii baxday, ayay gabadhii ku tiri hooyo waxaadaan ugu wacan, iminka gabadhan waan dili lahayn waan ka dhargi lahayn. Islaantiina ma ay hadal. Markii dambe, makiinadii kala jabtay ayaa hadashoo ku tiri, dib walba ii jijibiso aniga ayaa shaqada ma wadaye, idinkuna meeshaad rabtiin furta, aniguna waan ila shaqaynaya. Wixii intaa ka dambeysay, makiinadii waa ay shaqaynaysay, ilaa intay heerka gaareen ay mashiin fara badan soo iibsadeen, meelna ay furteen. Gabadhii iyo hooyadeedna waxay noqdeen kuwa la garanayo oo haysta meel weyn oo dadku jecel yihiin. Sheekadeennina intaas ku